الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أموره ودين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيارتنا شرفت له كحر channel كان بندر ميديا وحن مركل مرلبات إذن لنا هاي كسر دوال channel كينا بندر ميديا. maanta insha allahu tacaala bandar media waxay idiin soo diyaarisay sidaan horeyba idinku ballan qaadnay barnaamijkeena taxanaha noo ahaa nolosha iyo bulshada. barnaamijkaas alaaba waxaa mar noo soo jeediya walaalkeena professor aways axmed cusmaan. aways marka hore waan ku salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدي هذا ومحسنتين بندر ميديا استوديو إن البرنامج كان خيمة على إن ديو عزمتان أدي هذا إنك ما علنا. إن شاء الله تعالى ولكن أويس سيدا هراء الصعدان وحمركز نقال الصح حريرة أسوق جوجا ذلك سويدن ديارنا وياها ولاليه الصوماليات إرهاب بنادر إنه كحقت رعقانته وليها. إن شاء الله تعالى ما أنت الموضوع بنوصل على طانو ونظامك وذهذلك. حقيقة قفك بني آدم كدوسن أوجين قابك الله هدلايو إن ذامك إليهين لب كذا لا هاي مرة باتن مرة خارجة وحلاقيها وإنه سوق قدر وحلا وهدونه علايس وكانته مركزات راد ده وحنوس ديار ولا كنا ذامك ولا هدلك ولا هدل إيوه هدل ما محاي كليهين ولا هدل إيوه هدل كلا هدل ولا هدل لا ولا برنامج كاسو نو برنامج ونوس ديار ولا كنا أويس جزاك الله خيرا. الله كبرك ميزانك حسناتك الله كوسارو وقتي قد أصوب المسي ولا الله هاي غير بنادر إن شاء الله تعالى برنامج كان هرو قال كوسو دوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنربنا مانتا إن برنامج كينا هرو مركا نلوشا إنان كسو قادنا سيدا هرو الشيغي وحوالبا أو فائدة نوله إيو وحان وحكو سحينو ama waxaan kala faa'iideysanayno iyo wax walba oo horumarka nolosha shakhsiga Soomaaliya qayb ka qaadan kara. waxaa jirta waxyaabo qaarkoodna waa diin waa muqaddas in aan ku dhaqanno waa waajib. waxyaabo qaarna waxa waaye in aynu dadaalno oo aan dadka kala maragtay kaga dayano. ku dayashada qofka ka fiican nooc noqdaba ma aha wax ma ahan daciifnimo ma aha. in aad qofka ku dayato hadii ku dayashada oo aqliga ku dhisan qofka ka fiican aad maragtay ka masartid oo aad ku dayatid wuxuu sameeyay waa wax horumar ku gaari kartid. laakiin dadka qaar waxay u haystaan inay ceeb tahay. adduunka oo dhan wuxuu ku dhisan yahay isku dayasho iyo tartan hoosaad. wadan walba wadanka xishooda male in ay fiiriyaan wadamada horumar ay ku daydaan. marka bini aadankana horumarkan waxa lagu gaari karaa ilbaxnimada taasoo ah in qofka kale ka horumarka gaaray inaad fiiriso kaga dayatid. marka waxyaabo badan oo saan sheegnay waxbarasho in arrimaha diinta intii aan ka naqaano dad isdhexgalka dadka waxbarashada caruurta hab korinta wanaagsan caruurta waxyaabo badan aan kusoo qaadanayna. laakiin maanta waxaan rabaa inaan mowduuciga kusoo qaato mowduuc sahal ah oo ah habka hadalka wuxuu ka mid yahay waa communicationka isgaarsiinta qofka kale bini aadanka aad la leedahay. waxyaabahaas oo dhanna waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha diinteena ayna barto. marka laakiin wadamo badan oo aan horumarin ay waxay u arkaan inuusan hel cilmi wanaagsan ama cilmi muhiim ah nolosha. laakiin habka loo hadlo qofka hadduu ka fikiro waxaa laga yaabaa inuu kasbado asxaab inuu kasbado dad badan ay dhageystaan. in dadka ay ku dhageystaan waxa u baahan tahay inaad baratid habkii qofkaas aad approach gareyn lahayd aad maaragtay ugu dhawaan lahayd habkii aad u abaari lahayd habkii aad u hadli lahayd. taana waxay ku imaan kartaa in dhaqan ahaan inaan baranno siyaabaha loo hadlo iyo siyaabaha loo kala faa'iideysto. waxyaabaha oo aan muhiim ah ku soo qaadanayo waxa waaye dhageysiga wuxuu ka mid yahay hadalka laftigiisa. hadalka ma ahan kaliya qofka hadlaaya qofka dhageysanaya naftigiisa wuxuu ka mid yahay hadalkii qayb ka mid ah waay. taas maxaa loo jeedaa waxa waaye markii la dhaho discussion waa wada hadal. laakiin markii khudba ay tahay waa mar aad dad u khudbeynaysid oo kaligaa lagu dhageysanayo. taana waxa waaye waa laga fiican yahay. markii ay noqoto wada hadal
aad meel ku dhex jirtid meeshay noqotaba waa inaad ku xisaabtantaa inta aad adiga hadlaysid inaad siisid dad kale inaad ay hadlaan marka markii aad u ogolaatid qofka inuu hadlo yaa faa'iiday asiga ma faa'iidin adaa faa'iiday waxaad ku faa'iiday waxa waaye nolosha wixii adiga aad taqaanid kugu jiro waa haysataa laakiin waxaa fiican in dadka kale aad ka faa'iidaysid siday wax u arkaan siday wax u xaliyaan siday maaragtay ay nolosha waxyaabo problem ay soo mareen iyo akhbaar maaragtay ay u helaan طبعا وواحد اسكو حيران ما هان كلي قفك كلي انه هادلو ما هان كلي انا كليغا هادشو لكن وا inaad wada hadashaan oo is dhageysataan is qadarisaan marka dhageysiga wuxuu ka mid yahay wada hadalka qaybta ugu muhiimsan ee loo baahan yahay qofka inuu barto uu dhageysan lahaa wax la barto ma tahay ha maxaa yeelay dad badan oo waxa jira aan codkooda kaliya maqla dad waxa jira aan codka kale maqlin يعني markay hadlayaan waxa uu cad kaliya wixii asiga maskaxdiisa ku jiro marka ninka uu degdegaya waxa laga yaabaa inuusan maqlin wixii dadka kale laakiin ogow hadii marka la doodayo ab wiliga hadaa u baratina codkaaga maqashid waxaad ku ceeboweysaa markii meel ay timaado debate wada yani tartan ama wada hadal dood cilmiyeed markay tahay hadalkaaga intaad ka fikiraysid oo adiga jeceshahay aad aaminsan tahay qofkii kale hadalku dhahay ayaad ka dhacaysaa marka waxa imaanaysaa inaadan wada hadalkaaga inuusan noqonin mid la socdo meesha taas waa dhageysi waa muhiim waxa kaloo muhiim ah hadalkaaga inuu noqdo mid nuxurkiisa taabanaya maaha mid dheer inaad noqotid qof warkiisa soo koobaya markuu wax yar hadlo dadka dhan ay fahmayaan in hadalka mowduuca meesha ka hadlayo mid iska dheer oo aan la soconin maaha haddii subjectiga laga hadlaayo aadan la soconin waa dhibaato subjectigaas hadduu yahay subject siyaasad maadada laga hadlaayo hadday tahay siyaasad hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay arrimo diin wixii inaa qofka inuu ogaado waa muhiim markaad sameeyo waxaa kaloo muhiim ah qofka kale hadalkiisa haddii aad xitaa isku dayda aad dhegaysatid laakiin aadan maskaxdaada aadan tababar ku siinin inay isla markii analyze ku sameyso hadalka meeshuu ka hadlayo qofka kale ibteeda leedahay waxyaabahaas oo dhan waxa waaye waxyaabo caruurta markay yar yihiin loo tababaro ayagoon maaragtay wax aan loo barin laakiin nolosha la tuso tababar lagu siiyo marka wadamo qaarkood ma lahan laakiin waxaa fiican dadka waaweyn inay hadda ay bartaan tixgelin siinta way noogu yar tahay runtii qofka wuxuu jecel yahay inuu hadalkiisa xoogga inuu hadlo qayliyo oo dadka kale dhan uu ka dhex muuqdo laakiin qofkan kale inuu tixgelin siiyo u dhageysto ama ha dhageystay inuu hadalku ku hadlaayo uu ka fikiro waqti siiyo ma ka fikiraayo dad waxaa arkaysaa waa aamusan yihiin qofkan waa hadlaa asiga wuxuu kasii fikiraa hadalku dhihi lahaa marka meesha waxaa ka baxay fursad uu ku ogaado wixii la sheegay marka qofkii wuxuu noqonaa qof maragtay that's also problem aamusnaanta wadamo badan ama dhaqamo badan waxaa loo arkaa inay tahay daciifnimo soomaalina waa ka mid nahay qofka aamusan waxaa laga yaabaa qof aamusan inuu xaqiisa meesha u ku waayo waxaa laga yaabaa qofka aamusan inaan la dhegaysanin la ixtiraamin laakiin wadamo waxaa jira ilbaxnimo qofka intuu aamusan yahay inuu yahay qof aasan qof xigmad leh qof maskax leh marka aamusnaanta ma aha wax ceeb ah waa wax fiican oo loo baahan yahay waxaa jira qofka hadalka badan iyo qofka aamusnaanta badan laga yaabo qofka aamusnaanta badan wuxuu la aamusan yahay inay tahay hadalkii inuu fahmay ama inuu aqoon fiican leeyahay waxaa jirta maama ingiriisi oo dhahaysa empty vessels make the most sound baaquliga ama suxuunta eberka ah waxba ku jirin markii la isku dhifto iyo mid ka buuxa biyo haddii meel lagu tuuro labada kee dhawaaqiisa badan yahay waxaa dhawaaqa badan kan eberka ah waxaa laga wadaa waxa waaye qofka maskaxdiisa waxba ku jirin aad u qeeliya laakiin qofka maskaxdiisa waxa ku jira waxaa badan feejignaantiisa iyo dignaantiisa marka markasta aamusnaanta ha u arkin wax ceeb ah ama daciifnimo ah inaad aamusnaanta badsatana oo aadan markii lagaaga baahan yahay hadal ina hadlina waxa taana daciifnimo noqonaysaa dhawaato marka waa inuu qofka maskaxdiisa balance ku sameeysaa markii loo baahan yahay in la hadlo xaqaaga inaad dhiibatid aad ka hadashid mawduuca aadan maaragtay foritembo u dhahaa tali aniga mid ka baxsan mawduuca laga hadlaya inaadan bixin in markaa sameynin waa dhibaato marka haddii habkii loo hadlaayo tixgelintii aan fiirino
dadka qaarkoodna waxaa ku jira qabweyni ah in qofkaas hadlaya maalanba inay u arkaan ayagoo aqoon u lahayn inay u arkaan inuu yahay qof aan wax laga faa'iidaysan karin wadamada kalena waxaa arkaysaa xitaa nooc walba ayaa laga faa'iidaysan karaa ilaa iyo inta qofka uu aamusan yahay aan la ogeen waxaa fiican inaadan ku degdegin tan kalena ilbaxnimadeena sida diinteena sheegto waa inay noqotaa qof walba oo bini aadam ah inaa ixtiraamto profession kasta uu leeyahay inaadan waxba yasma ay ku gelin haddii intaa aysan ku gelin oo qof walba aad dhega siinaysid oo aad dhegaysanaysid oo aad maaragtay waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iidaysatid qof aadan haysatid dabcan waxa waqtigaaga waa xadidan yahay laakiin mar walba markii ay ku qabato inaad hadashid hadalkaaga waa inuu lahaadaa hadal muxtarim ah oo iska ilaalinaysid waxyaaba diinta kasoo horjeeda hadalkaaga inuu focus leeyahay waxaan ka wadaa inuu yahay mid mawduuca laga hadlaayo ku wajahan oo aan ka fogeen markay tahay waxyaaba madadaalo ah waa gooni waa okay laakiin markii laga hadlaayo meel debate yani dood cilmiyeed ama dad wada sheekaysanayo ama meel ku kulmaayo markasta inuu mawduucaas ku wajahan yahay ayaa muhiima tan kale iska ilaali diinta laftigeeda xanta ma ogola maaragtay caytinka ma ogola in hadalkaaga inaad ka fikirtid halkan qof kale ma dhaabacaya waa wax muhiim ah maxaa yeelay haddii hadalkaaga aadan u fiirsanin uu qof kale dhaabaco waxa waaye dembiyaa diinta ka gashay adigana shaksiyadaadii waxa waaye waxaad noqonaysaa qof xun oo xaasida marka waxaa muhiim ah hadalka waa sahal ilaahay sahal buu waa u baranay inaan sameyno laakiin wuxuu ku fadhiyaa qiimo shaksiyadaada diintaada maaragtay wadankaaga maxaa yeelay waxaa lagu ogaanayaa sida hadba aad wax u doodaan badanaaba waxa waaye wadamo badan oo afrikaan ah oo anagana aan ka mid nahay ayaa waxaa laga yaabaa in hal mawduuc laga hadlaayo 10 qof inay wada hadlaan waa la is dhegaysanin dhaqankaasna waana lagu sheegaa sida loo baabi'in karo dhaqankaas waxa waa inaan barano dhegaysiga iyo inuu qof markuu hadlaayo qof kale aamuso haddii labada hadlo wixii isku dhacaya marka arrimahaas iyo arrimo badan waa ka wada hadli doonaa horumarkan wuxuu ku bilaawdaa hal talaab iyo niyadda inay naga timaado marnaba ha isdhahin ma waxyaabaha aan ka hadlaayo in loogu talagalay Mareykan iyo Yurub may waxaa loogu talagalay anagana loogu talagalay haddii 99% dadka uusan ku soconaynin adiga hadduu kugu soconay adiga bilow hadda adiga bilowdid Soomaaliya intaasoo 15 milyan haddii kaligaaga aad bilowdid talaabtii ficneed waxaa laga yaabaa inay fido ay fiicnaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أويس آدي أيوم هسني هاي إلهي في ميزان حسناتها الله أصاره أنا إله أنا قدوا ديكو عمل فشا براتكونا عمل فشا إن شاء الله تعالى. إن برنامج كنا ما أنت يكسو جبين يا أنا محمد حاج أمين يبهد ذا بندر بنادر أو أسكت دون وحيدين لنا هاي مالين تهيدين وناك سناتو هبيكنا إذا كنا بدنادو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.